noolaada ama kaag iyo ashqaraar arag daawade haddii aad hore u maqli jirtay wasiir xildhibaan shaqaale dowladeed amaba qof shacabka ka mid ah oo dalal shisheeye waddankiisa u basaasaya weligaa miyaad ka fikirtay inuu jiro boqor dhan oo dal xukuma kaas oo waddankiisa iyo weliba wadamada jaarka ahba usoo warawareeya dalal shisheeye shaqadaa foosha xunna muddo 20 sano ah hayay haddaba inta aynaan boqorka carbeed Malik Hussein loo garan og yahay taariikhdiisa madow ka hadlin si yar oo koobnaan badan aynu u dulmarno taariikhda boqortooyada Urdun oo ah meesha uu ninkaasi ka talin jiray Urdun waxa ay ka mid tahay meelaha ugu qadiimsan caalamka oo waxa lagu dhaqnaa ilaa 1400 oo sano ka hor miilaadiga waxa ay ku taalaa boos juqraafi ahaan muhiim ah sidoo kalena dhul weynihii dawladda Cusmaaniyiinta ayay ka mid ahayd haddaba tan iyo waqtigii uu Mucaawiya wiilkiisa ku wareejiyay boqortooyada Islaamka waxa soo taxnay dagaal ay Haashimiyiinta, Cabbaasiniyiinta iyo firkii Cali bin Abi Talib ay ku doonayaan in ay ku hantiyaan talada muslimiinta waxa ay ku doodi jireen iyagu in ay xaq u leeyihiin in ay caalamka Islaamka u taliyaan maadaama uu nabigu ka soo jeedo yoolkaas ayay u halgamayeen Shariif Hussein oo isna Haashimiyiinta ka soo jeeday qudhiisa waxa ku jirtay aqliyada caynka u fikiraysa dagaalkii koobaad ee adduunka ayuuna Shariifkani Ingiriiska heshiis la saxaxday waxa ay Ingiriisku u ballan qaadeen in ay ka dhigi doonaan boqorka carabta oo dhan u taliya isaga iyo ubadkiisina waxa ay bilaabeen kacdoon weyn oo dawladda Cusmaaniyiinta ay xididada ugu siibayaan ciidan badan inta ay urursadeen ay bilowgiiba Maka iyo Madiinaba la wareegeen ciidamadii dawladda Cusmaaniyiinta oo Ingiriis iyo xulafadiisa la diriraya ayay carab gadoodsan oo ay hor kacayaan Shariifka iyo ubadkiisu dhabarka ka toogteen jilbaha ayayna dhulka ugu dhufteen Cusmaaniyiintii taariikhdiina way ka tirtireen haddaba yaa waxa lahayd in uu Ingiriisku markii uu Shariif Hussein ku dangaadhay uu heshiiskii ka baxay dhulkii carbeedna uu ka dhigay dalal go'an oo uu gumaysto waxa se xusid mudnayd laba wiil oo uu Shariifkaasi dhalay midna in Ciraaq boqor looga dhigay inkastoo oo mar dambe la inqilaabay lana laayay isaga iyo qoyskiisiiba wiilkii kale oo Cabdilaahi la oran jirayna waxa wadan looga sameeyay daanta bari ee webiga Urdun halkaas oo ahayd meel baaxad soora ah oo aan khayraad lahayn isla markaana ahayd labooyin ay safaradu maraan inta xuduud beenaad loo jeexay ayaa halka lagu canqabay oo loo aqoonsaday dawlad madax bannaan loona bixiyay mamlakatu Urdun al-Haashimiya sanadii 1946 dagaalkii 1948 ay Urdun Israa'iil ku qaaday ayay ka qabsatay Qudus iyo daanta galbeed ee Falastiinta waqtiga laga bilaabana si rasmi ah ayuu dhulkaasi u hoos yimi boqortooyadii Urdun 1951 ayuu boqor Cabdilaahigii uu Shariifku dhalay u talaabay daanta galbeed ee Falastiin si uu halkaas salaada jimce ugu soo tukado laakiin wiil Falastiini ah ayaa rasaas huwiyay halkaasna uu ku nafwaayay goobta waxa taagnaa Hussein oo 16 jir ah waxana uu toos u arkayay awowgiisii soo barbaariyay oo la tooganayo dhacdadaasina saameyn weyn ayay ku yeelatay wasiiradii baarlamaankii iyo dawladda Ingiriiska oo saameyn siyaasadeed oo ballaaran iyo mid awoodeedba dalkaas ku lahayd waxa ay markiiba ka arransadeen cidii dhaxli lahayd boqorku laba wiil oo u dhalay ka weyn oo dalaal la oran jiray bukaan buu ahaa laakiin ninka kale waxa ay u arkeen in uu danahooda ka soo horjeedo sidaas awgeed ayay dalaal ka dhigeen boqor isla markaana wiilkiisii yaraana dhaxal suge ugu magacaabeen sanad kadib oo ahayd 1952 ayay casileen boqor dalaal iyaga oo ku andacoonaya caafimaadkiisu inuu liito hadda ogow oo markii hore way ogaayeen laakiin ninka kale ayay kaga baxsanayeen degdeg ayaa loogu yeedhay Hussein-kii 17 jirka ahaa oo Ingiriiska waxbarasho ugu maqan isaga ayaana boqor loo doortay laakiin dib ayuu Ingiriiska ugu noqday si uu halkaas waxbarashadiisa ugu soo dhamaysto 6 bilood kadibna waa uu soo laabtay waxaana loo dhaariyay in uu noqdo boqorka labaad ee dawladda ka taliya wiilkan da'da yari meesha uu ka taliyaa waa buqcad ololeysa waxa dardar leh dagaalkii qabooba oo marka caalamka hanti goosad iyo hanti wadaag ay isugu dhibilaysanayaan dhinac waxa ka xigta Israa'iil dhanka kalena waxa ka kulaalaysa Ciraaq oo har galay boqorkii Ciraaq ee awooga u ahaa iyo qoyskiisiiba dhegta diiga loo daray
markaasna waxaa jiray isku day ahaa in boqortooyooyinka carabta xididada loo siibo oo hore waa tii boqortooyadii masar jamaal cabdinaasir uu inqilaabay tii liibiyana loo afrogay. waxaa kale oo la laba hashidayay jamaal cabdinaasir oo isku waday inuu noqdo carab ninka u taliya, midoogii carbeedna heerkiisii ugu sarreeyey ayuu marayay. taasi baqdin ayay ku haysay boqorka da-da yar leh, cadaadisyada faraha badan lehna waxaa usii dheereed saboolnimada waddankiisa iyo weliba xisbiyada mucaaradka ah ee ku kacsanaa, waxaana ay keentay inuu boqorkani maraykanka isku dhiibo sanadii 1970kii, waxaana markaas uu si toos ah uga mid noqday sirdoonka Israa'iil. magaciisa afgarashaduna waxa uu ahaa Master Beef. maraykankuna waxa uu howlgalay inuu ka dhigo halyey carbeed oo shooyo siyaasadeed oo magaciisa kor loogu qaadayo ayay CIA-du maalgelisay, waxaana uu mushaharka uu maraykanka ka qaadan jiray uu ahaa $1 milyan kaash ahaanna waa lagu siin jiray. sirdoonka maraykanka oo keliya lama uusan shaqayn jirin, xataa ka Israa'iilna waa uu la howlgeli jiray oo kulamada uu la yeeshay 30 kor ayay u dhaafayeen. waxaa aad loo xasuustaa ka hor intii aanu dhicin dagaalkii 1967 ee Israa'iil, Masar, Suuriya iyo Urdun u dhexeeyay inuu boqor Xuseenkani maalmo kooban dagaalka ka hor uu safar degdeg ah ku tagay Qaahira, waxaana uu Jamaal Cabdinaasir la saxiixday heshiis dhigaya inuu dagaalka kusoo biiro ciidanka Urdunna uu hogaamiyo Generaal Masaari ah, sidoo kalena ciidamada carabtu ay xuduudda isticmaalaan. arrimaha yaab kale waxaa ka mid ahaa boqorkani dagaalka ka hor inuu diyaaradihiisii dagaalka uu waddanka ka saaray si aan Israa'iil loogu adeegsan. waxaa kale oo cajiib ahayd ciidankii Israa'iil in ay qabsadeen Qudus iyo weliba daantii galbeed ee Falastiin. daawade dagaalkaas boqortooyadii Urdun dhulkeedii kala badh ayay ku weyday oo laga qabsaday. ciidanka kaga dhintay Urdunna tiradoodu waxa ay gaadhayaan 16 askari. hadda bal u fiirso, waa ciidan dhan oo dagaal galay isla markaana dagaalka ku waayay dhulkoodii kala badh, waxaana ka geeriyooday 16 askari oo kaliya. soo xaaladdu markaas ma aha timir laf baa ku jirta. sidoo kalena 1973 waxa ay Suuriya iyo Masar qorsheeyeen in ay dagaal qarsoodi ah Yuhuudda ku qaadaan maalintooda ciidda. boqor Xuseenkani markii uu xogta helay diyaarad degdeg ah ayaa uu qaatay oo Tel Aviv ayuu ku tagay, waxaana uu la kulmay Goldamaa'iil oo markaa ahayd ra'iisul wasaaraha. xogtana waa uu la wadaagay, laakiin gabadhani may rumaysan boqorkan, waxaana ay taasi sababtay dagaalkii qaraadhaa ee ku dhowaad 1000 askari Israa'iil lagaga dilay. markii ugu horeysay 1977 ayuu joornaalka Washington Post uu xogta boqorka faafiyay, waxaana diyaariyay wariye aad caan Maraykanka u ahaa, kaas oo ahaa isla ninkii fashiliyay qeybtii weyneyd ee Watergate. wariyahani waxa uu xogta ka helay madaxweynihii xilligaa Maraykanka ka talin jiray laguna magacaabi jiray Jimmy Carter, kaas oo isagu $1 milyan ee uu qaadan jiray boqorkani ka joojiyay. sidoo kalena Maxamed Haykal oo ah suxufi caan ka ah Masar iyo guud ahaan caalamka carabta aadna ay boqorkan u soo wada shaqeeyeen ayaa kaga hadlay buuggiisa Kalaamun fi Siyaasa. boqor Xuseenkani waxa uu geeriyooday 1999 aaskiisaasna waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii Maraykanka ee xilligaas Bill Clinton iyo 3 madaxweyne oo hore oo Maraykanka soo maray, ayna ka mid yihiin George Bush iyo Jimmy Carter si fashiliyay. sidoo kalena waxaa iyaguna ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo Israa'iil ka socda, ayna ka mid yihiin madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii Yuhuuddu. madaxdii carbeed oo dhamina goobta waa ay joogeen. mas-uul ka tirsanaa dowladda Israa'iil ee xilligaas ayuu TV dood u qabtay isaga iyo mas-uul ka socda xisbiyada mucaaradka ah ee isla waddankaas. waxa ay mucaaradkii ku eedeeyeen sababta ay madaxda Israa'iil oo dhami ay u daba socdeen jinaasada boqor Xuseen. mas-uulkani isma uusan dhibine waxa uu ku yidhi ninkii, haddii aad ogaan lahaydeen ammaanka Israa'iil darteed waxa uu boqorkaasi u sameeyey ma daba socoteen oo kaliya ee waaba aad daba ordi lahaydiin. daawade intaas ayaynu ku joojin doonaa barnaamijkeena. barnaamijyo kan la mid ah iyo kuwa ka sii xiiso badan ba intaynu ku kulmayno. nabaadiino.